markaas buu u tegay waxay ku tiri waan maqlay inaad Naciima guriga Fardowsa geysay ee maxaa ku daba dhigay gabadhaas ii sheeg sow dartaa gurigan ugama saarin sow kuma dhalin aniga maxaan hadal kuugu kari waayay kadib ayuu yiri hooyo waa runtaa Naciima gurigaas waan geeyay hadalkaagana hooyo waan maqlayaa eeg kaliya ma gabadhan aan caawiyay ayaad igu colaadinaysaa Naciima waa gabar hooyo banaanka haddii aan isaga saarno wax walba ayaa qabsan kara shalay iyadoo faraxsan ayay noo timid maantana iyadoo ooyeyso ayaad banaanka u saartay hooyo aniga oo wiilkaaga ah qaladkii aad gashana inaan saxo ayaan jeclahay gabadhii aad xumaysay si aanay waxba kaaga taban ama aanay dartaa ugu murugoon ayaan sidaan u sameeyey maama Caasha aad ayay ula dhacday hadalka Anas kadib ayay tiri Anasow waa runtaa gabadhaas iyadoo faraxsan waa inoo timid maantana laga yaabee inayba i habaarayso waayo si xun ayaan u kala tuuray mana fiirin daruufta hayso waad ku mahadsan tahay inaad qaladkayga i tusto waxaad kalood ku mahadsan tahay inaad Naciima meel aan garanayo geysay oo intaan u tago ama aan u waco cafis uga dalban karo Anas aad ayuu u farxay kadib ayuu yiri hooyo adigaba waad mahadsan tahay maadaama aad i fahantay kadib ayay tiri Naciima beri keen si aan isku cafino Anas ayaa igu soo celiyay taleefankii arrintii ayuuna iiga waramay mar kale ayaan anigana ku faraxay Anas inuu farxad iigu soo laabtay habeenkii farxad ayaan ku seexanay 9 eber subaxnimo ayuu Anas albaabka ii soo garaacay markii aan ka furay ayuu soo galay isagoo aad u faraxsan ana waan ku farxay farxadda iyo quruxda wejigiisa ka muuqato markaas ayuu igu yiri haye waan baxaynaa soo labiso waan baxay waana soo labistay gaari albaabka u taagnaa ayaan soo raacnay waxaana imaanay guriga maama Caasha albaabka waxaa naga furtay idil kadib ayay intay qososhay tiri oo maba quusanaysid miyaa gurigii laga buriyay miyaa dib ugu soo laabatay aniga waan carooday kadib ayaan ku iri Anas maxaad ii tiri guriga sidii maahan maxay tahay albaabka ayaaba cayleyga hor keenaye albaabka ayaana ka baxay Anas ayaa iga soo daba baxay kadib ayuu yiri fiiri macaanto anaga idil uma imaan ee hooyo ayaan u imaanay welina isma arag maxaa dhacay qali maama Caasha ayaa buuqa maqashay oo durba banaanka u soo baxday kadib ayay tiri maxaa dhacay Anas ayaa yiri arrintan ayaa dhacday maama Caasha idil ayay ku qaylisay kadib ayay igu tiri Naciima soo gal aniga ku yeeray gudaha ayaan u galnay kadib ayay igu tiri maama Caasha Naciima waxaan ka raali gelinayaa qaladkii shalay aan ka galay alxamdulillaah waxaan dhalay wiil aad u caqli iyo naxariis badan wixii iga maqan waxaan rajaynayaa inay asiga ku jiraan qaladkii aan ka galay na ku ilow geesiga aan dhalay ee aan la dhibtooday inaad ku ciil baxday aniga ku xumeeyay haddana isla wiilkaygii ayaa garabkaaga noqday waxaan ku iri dib ma leh eedo waxaas waan iska ilaaway aniga waana ku cafiyey wax xumaan ah qalbiga kuuguma hayo hadda markaas ayay tiri maama Caasha Anas adiga banaanka u bax Naciimo ayaan rabaa inaan la hadlo Anas wuxuu yiri haye hooyo banaanka ayuuna aaday maama Caasha agteyda ayay soo fariisatay kadib ayay tiri Naciimo maanta waxaan ka rabaa hal mid inaad ii samayso waxaan iri ii sheeg waan kuu samaynayaa haddii aan awoodo waxay tiri maama Caasha waxaan rabaa inaad Anas kaliya faraha iiga qaado oo aad xiriirkiisa iska jarto waxaan rabaa inaad iiga fogaatid wiilkayga aad ayaan iskugu naxay waxaan garan wayay wax aan ugu jawaabo kama filaynin maama Caasha hadalkan markaas ayaan iri eedo aniga Anas waa uu i caawiyaa kaliya haddii aan iskaga fogaado yaa i caawinayo oo wax ii taraayo kadib ayay tiri waxaad rabtid i weydiiso oo lacag ah balse Anas ii ballan qaad inaad xiriirka u jaraysid waxaan iri diyaar waaye eedo waan isaga fogaanayaa Anas kaliya waxaan rabo ii sameey si aan Anas uga maarmo kadib ayay tiri diyaar ayaan kuula ahay ee sheego meeqo ayaa kugu filan waxaan iri waxaan aqaanaa cilaan saarka iyo make-upka marka waxaan rabaa meel inaan furto oo aan shaqaysto kaliya lacagta iga bixi waxay tiri waa fudayd waxayna ii dirtay intii aan lacag weydiistay kadib ayay Anas u wacday qolkiisa ayayna la aaday markuu Anas soo baxay ayuu yiri soo bax gurigaagii ayaan ku geynayaa markaas ayaan iri maya Anas waxaan rabaa inaan aado hooyo gurigeeda magaalka ayay dhinac ka joogtaa sidaas ula soco kadib ayuu yiri waa yahay nakeen waan ku geynayaa balse waxaan diidayaa Anas inuu guriga aan joogo barto waxaan iri maya bajaaj ayaan qabsanayaa mar kale ayaan ku barayaa xabiibi waxa uu yiri Anas maya ee aan xaafadda ku raaco hooyadaana isoo bar iyo guriga
waxaan iri haye inakeen waana israacnay waxaan dukaanka ugu tagnay hooyo iyo walaashay iga yar Anas iyo hooyo aad bay isku barteen markaas ayay tiri hooyo horay ayay Naciima iiga ka sheekaysay inaad wiil wanaagsan tahay. Kadib ayuu yiri mahadsanid eedo waan israacnay aniga iyo Anas waxaan tagnay fadhiga kadib ayaan iri Anas gurigan ma jirto cid ina kala ilaalinayso sidaan ku jeclahay oo kale ayaa lagaaga jecel yahay. Markaas ayuu yiri Anas waan ku faraxsanahay midaas macaanto armaan iska jooga halkan kadib ayaan iri maya macquul ma ahan maama Caasha miyaad rabtaa in ay guriga nagu gubto wuxuu yiri maya hooyo guri aan ku jiro ma gubayso wiilla aan miyay isdhigaysaa. Isla markii mobilka Anas ayaa soo dhacay kadib ayuu yiri iga raali noqo hooyaa isoo wacayso waxaan iri wayahay la hadal. wax yar markuu la hadlay ayuu yiri hooyo istaji waan ku baryayaa waxaad ka joog itiraahdo dambe samayn maayo keliya hadda istaji aniga waan qaldamay. Aniga waan isku naxay waxaan dararay inta aan weydiinayo waxa hooyo ku dhacay Anas naxtin fara badan ayaan ka dareemay hadalkiisii xitaa waa uu isku dardarsamay mobilkii ayuu dhulka dhigay madaxa ayuuna qabsaday. Waxaan is iri bal weydii waxa Anas ku dhacay markaas ayaan iri Anas maxaa dhacay balse Anas iima jawaabin shib ayuu iga yiri waan yaabay waxa Anas durba bedelay. Kadib ayaan istaagay halkii uu fadhiyay ayaan tagay markii aan kor istaagay ayaan mar labaad weydiiyey maxaa dhacay haddana iima uusan jawaabin. Kadib waxaan fariistay meel aan ka fogeyn waxaan iri Anas ila hadal ha iga nixin ii sheeg waxa dhacay si kadis ah ayuu igu yiri waan ku baryaa aamus wax yar maskaxda ayaad iga gashay hal mar igama aamusi kartid miyaa. Aad ayaan uga xumaaday jawaabta Anas halkii ayaan isaga soo istaagay halkaygii ayaana fariistay runtii Anas inuu sidaas iila hadlay waan aamini waayay sidaan ahay ayaan garan waayay walaashay iga yar ayaa cabitaan inoo soo samaysay markii ay cabitaanka keentay ayay nala yaabtay labadeenaba sababta aan madaxeena hoos u geynay kadib ayay ii timid aniga waxayna igu tiri Naciima maxaa kugu dhacay hadal waan kari wayay waan isdhibay waxaana iri maya abaayo iyadoo yaaban ayay naga laabatay cabaar markuu Anas aamusna ayuu igu yiri Naciima hadal xun ayaan ku iri sow maahan sidaas darteed ayaad iiga xanaaqday. Balse aniga uma jawaabin intuu soo kacay ayuu agteyda soo fariistay kadib ayuu igu yiri Naciima waan ku baryaa ila hadal anoo naxsan oo fikir igu furan yahay ayaad hadal igu soo celcelisay sidaas ayaan kuu iri iga aamus balse hadda waxaan ku leeyahay ila hadal iga raali noqo Naciima waxaan iri haddii aad xanaaqsan tahay aniga miyaad igu ciil furaysaa dhib ma leh haddii aad sidaas ii garatay balse kaama filayn midaas. Wuxuu yiri hal mar keliya isoo fiiri waan ogahay inaan kugu qaldamay weliba sayd Naciima waan ku baryayaa iska kee cafi. Intaanan hadlin waxaa albaabka ka soo gashay hooyaday. Waxayna soo istaagtay agteena waxay aragtay inaan aniga xanaaqsanahay. Anas ayaa hadal ku bilaabay hooyo ana waan iska aamusay kadib ayay ku tiri war gabadha maxaad ku samaysay waa maxay sidaan gabadha iyadoo faraxsan ayay timid maxay tahay sababta aad gabadha uga oohisay. Anas oo aad u naxsan ayaa yiri waxba kuma samayn hooyo maxaad aragtay anigu waxba kuma samayn gabadha kadib ayay tiri iga bax marka hore idaaf aniga waan isku naxay kadib ayaan iri hooyo iska dhaaf waxba iguma samayn Anas keliya hadal baanka xanaaqay kaleexo hooyo way iska baxday marba haddii aan iri waxba igama halayn Anas markii ay albaabka ka baxday ayaan iri Anas iska bax. Kadib ayuu yiri maya Naciima ma waxaad rabtaa caawa inaad xanaaq ku seexato fadlan i cafi marka hore waxaan iri kuma cafinayo ii sheeg waxa ay hooyada kuu sheegtay kadib ayuu yiri hooyo halis ayay ku sugan tahay dhiikar ayaana ku dhacay. Hadda ayaana laga soo sheegay sow lagama yaabo aniga dartay inuu ugu dhacay haddii aan ka sii xanaajiyana way ku bixi kartaa nafteeda marka waxaan ku qasbanahay inaan hooyaday dajiyo si aanay dartay ugu caroon. Waxaan iri waan ka xumahay laakiin hadalkaaga ma waxaad ka wadaa xiriirkaaga waan jarayaa oo hooyo ayaan amarkeeda qaadanayaa hadda ma sidaan ayaan ku kala go'aynaa. Wuxuu yiri Anas bisinka maya Naciimo maxaa dhacay macaanto qalad ayaad fahansan tahay keliya waan isku naxay sideen ugu fikiri karaa inaan adiga ka fogaado balse waxaan ka shalaynayaa inaan hadal xun ku iri waxaan kaa codsanayaa inaad i cafiso. Waxaan ku iri waan ku cafiyey sow ma ogid inaan kaa caroon karin adiga wuxuu yiri waad iga caroon kartaa bini aadam ayaad tahay laakiin waa balan mar kale hadal ku dhibaayo kuma dhihi doono gacaliso.
waxaan ku idhi waayahay hooyo allaha caafiyo haddana iska bax kadib ayuu yidhi waayahay waan ismacsalaamaynay markuu baxay ayaan hooyo u tegay balse waxaan arkay hooyo oo caraysan ma arki jirin hooyo oo xanaaq ka muuqdo waxaan ku idhi hooyo maxaa kugu dhacay markaas ayay tidhi ninkan mar kale yaanan kugu daba arkin waxaan idhi hooyo waa ku sidee wiilkan waa Anas jacayl fara badan ayaana naga dhexeeyo maama Caasha ha noogu darmin hooyo waan ku baryaa waxay tidhi maya waxaan idhi hooyo laakiin sabab kadib ayay tidhi markaan fiirshay ninkan ma ahan mid mustaqbalkaa rabo iskaga hartan kale nin aad shaqaale u noqotay beri ayuu kugu caynayaa waxaad heli kartaa nin waxaas oo dhan ka bannaan ee iskaga har Anas run ahaantii hooyo sidaas kama filaynin waxaan idhi hooyo dhib ma leh aniga aan iska dhinto ma jirto cid ii naxayso ama farxadayda ka talinayso oo aanan Anas ahayn isma dhehaynin hooyaa Anas diidi doonto balse way dhacday hooyo hadalkaaga ma diidi karo wixii dhib ah anigaa marayo waana istaagay qolkayga ayaan iska aaday